السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب تقاليقا كسو دوادا channelka محمد عبدي. channelka محمد عبدي هداد ku cusub tahay subscribe una share garee asxaabtaada casharaanta si ay uga faa'iidaan wixii talo iyo tusaale commentiyan xagga hoose kaga tag. Maanta asxaabta qaaliga macaa waxaan dhiganaynaa cashar ku saabsan computerka maadaama uu yahay baahiyaha asaasiga waxyaabaha imika loo baahan yahay in la barto ee waqtigan xaadirka ka qayba in la barto ee shaqooyinkii waxyaaba noocaasi ay ku tiirsan yihiin waxaanu ka maarmayn inaad qofku profession ku noqdo uu wax ka barbarto. Marka waxaan dhiganaa qayb ka mid oo la yiraahdo keyboard shortcut-ka. Keyboard waa meesha wax laga taab garaaco, computerka laga taab garaaco. Markay sidaa tahay computerka meesha laga taab garaaco aynu leenahay waa computerka xarfaha ku qoran ayaa xaraf buuxu taagan yahay marka la isku qabto la isu geeyo ayaa wax soo baxan. Marka bal waxaan dhiganaynaa shortcuts-ka qaar ka mid ah asxaabta qaaliga marka imika kale aad doonayso haddii task manager-ka ama Windows task manager-ka waxaad taabanaysaa saddex xaraf oo keyboard ka mid ah waxa weeye waa control shift iyo escape. marka taabato control shift iyo escape waxa ku soo baxaya Windows task manager-ka shaqooyinka computerkaaga imika ku socda ee uu ku jiro waxaana kamid ah problem loading page somtel A4G marka imika kala mid kan doon computerada waxyaaba PC ka dhiga ayuu kamid yahay ayaa runtii halkan laga soo galaa laga saaraa. marka waxaynu rabnaa computer intaas oo shaqo ku socdo oo qofku PC gareeyay oo aan print gareeyay waxba intaas oo waraqood buu galiyay marka shaqooyinka bartaan baa qofku ka dhimaayo markaasuu ka saara bahalka culayska iyo computerka laga saaro culayska. marka imika kale ka saynu delete gareynaa indi task baynu odhanaynaa waynu ka saarnay kan kalena waa problem loading kana indi task baynu shaqo dhamaatay. marka already waxa weeyaan wax imika task manager-ka ku jira ma jiraan. marka asxaabta qaaliga imika kale marka doonayso inaad ogaato aad soo saarto Windows-ki iyo waxaan leeyahay wireless-ki iyo option kale fara badan marka doonayso waa inaad taabato control waxaan leeyahay start ama Windows-ka halkan la yiraahdo start menu ama Windows halkan la yiraahdo iyo hada ma xarafka sad asxaabta waxaa imika noo soo baxayna aragnaa Windows Mobility Center baa noo soo baxday oo maxaa ku jira wax ku jira battery wax ku jira wireless-ki wax ku jira brightness-ka computerka volume-ki wixii oo dhan baa asxaab halkaas markiiba waxa taabatay start menu ama Windows plus X marka taabatay shaqadaas ku soo baxday. shortcut-ki labaad baynu baranay markaad rabto asxaabta qaaliga markaad rabto imika kale tusaale ahaan in aad waxyaabahan imika dadku ay isticmaalaan imika kale uu qofku rabo inuu markuu ku jiro website oo kale markaad qoraal oo kale markaad aad ku jirto ama website kaas oo kale imika markaad ku jirto ayuu qof ama ku soo galay ama waxaad iska diiday soo kala dhacay oo aad iska maartay oo dabeetana waxaad rabtaa inaad markiiba degdeg uga baxdo maanta wada soo laabitaan iyo soo xiritaan iyo waxa looma jeedo waa inaad shortcut-ka barataa oo aad taabataa Windows plus D markiiba asxaabtay check markiiba uu ka baxay waa inaad hadana rabto inaad soo ceshto markiiba Windows ama start menu plus D. haddii aad rabto in aad soo dhaweysato shaashada computerka ama screen-ka waa inaad taabataa control iyo plus waa inaad taabataa. asxaabta qaaliga wuu inoo soo dhawaaday imika qoraalkeeni waayo control iyo plus hada taabato waa zooming waa inuu ku soo dhaweeyo waayo waxaa jirta asxaabtay marka qofku mouse ka isticmaalayo iyo markuu meel kale uu haysto qoriyaata mouse-ki uu haysto control iyo mouse combo isticmaalaya laakiin marka aad haysanin waa inaad marka soo dhaweysan waxaad taabanaysaa control iyo plus baa taabanaysaa waa soo dhaweysanay asxaabtay haddaan rabnay inaan iska fogeynona tusaale ahaan oo kale imika waxaan rabnay inaan soo dhaweysano kaas oo kale control iyo plus waa soo dhaweysan asxaabtay haddaan rabnay inaan iska fogeyno control iyo minus baan taabanaynaa control iyo minus markaan taabano wuu fogaanayaa. haddaan rabnay inaan soo dhaweysano asxaabtay control iyo plus baan taabanaynaa marka inoo soo dhawaaday control iyo plus baa taabatay
markaad rabto imika oo kale inaad iskaga baxdo oo kale aad iska laabto ee aad iska soo xidho sidiisaba waa inaad markaad waxaad rabtaa inaad waxaasoo dhan ba aad iskaba xidho oo aad iskaba saartoba marka alta iyo f4 baad taabanaysaa alta iyo f4 waxaad rabtaa inaad windowsyada iyo browserska waxaa kugu furan waxaa la browserada kugu furan inaad iskaba xidho alta plus 4 already way ka xidhan yihiin alta plus 4 alta plus 4 waxaad helaysaa browseradii kugu xidhan ku aad furtay oo dhan intaasoo browser ahaa waa degdegaysi bahalka shutdown siinaysaa waa inaad taabato markiiba alta plus 4 dabeetana aad shutdown siisaa haddii kale browserada iyo waxaas maanta isku korayo shutdown force iyo waxbuu koranaya hadhow toole markay sidaa tahay waxaynu baranay afar markaynu baranay waxaynu rabnaa iminkana inaynu barano rabnaa mid ka mid a waxyaabaha aadka loo isticmaalo ee ka mid a shortcutska la adeegsado dadku ay isticmaalaan inta badanba waxa weeyaan kan la yiraahdo iminka kale qofku inuu ogaado ranka computerka sidoo inaad run garayso waayo marmarka qaar baad rabtaa inaad running computer ku samayso waxaad taabanaysaa oo kale Windows iyo maxay iyo R baad taabanaysaa Windows iyo R halkan baad ku qoraysaa waxaad running garanayso tape-ka ama programka ama folder-ka ama waxaad baarayso halkan baa lagu qoraa laakiin asxaabta dadka qaar waxay sameeyaan waxay intay start menu ama Windows-ka tagaan bay ay run ku qoraan marka ran xagga sare uga soo baxda laakiin anigu waxaan ku sheegay inaad taabato Windows iyo plus R ama start menu plus R marka sidaa baratay waxaad rabtaa iminka oo kale waxaan furaynaa Word-ka oo kale markaad rabto inaad furto oo aad wax ku qorto waa in qofku uu bartaa Word-ka sida loo isticmaalo ugu saxsan ugu wanaagsan waayo waxyaabaha inta badan inta lagu shaqeeyo iminka waxa kamid ah Word-ka qofku sifiyada iyo qoraaladii waxa lagu qoro marka iminka tusaale ahaan oo kale qoraalkaas aynu qoray qoraalkaas aad qortay qoraalka markii aad qortay dadka qaar baa ayaa runtii jecel markiiba dee waxaad save gareystaan markaad horta aad highlighting ka sameynayso ku soo jiidi maysid oo maanta bas ay oran maysid laakiin waa inuu qofku bartaa inuu yiraahdo control plus a waa all waa highlighting haddana uu yiraahdo control plus s waa save buu ku leeyahay waa inaad dabatan magaca ku qortaa test waa inaad tiraahdaa test marka tiraahdo waa inaad desktop ka dhigataa testiga aynu nidhi haddaba marka testigaas inoo yaalo imika kale wuxuu inoo yaalaa imika kale tusaale ahaan oo kale wuxuu inoo yaalaa shaashadeeni inoo yaala screen-keen desktop-ku inoo dhex yaala marka rabto inaad ka bedesho asxaabtay magaca kale marka rabto inaad ka bedesho waa inuu qofku uu barto sidoo magaca kale uu uga bedelo waa inuu taabto xaraf kamid ah xarfaha oo maxaa la yiraahdaa f2 ayuu taabanaya f2 ba taabanaysa waxa kale magaca ka bedel buu ku leeyahay waa inaad magaca si looga bedelo barata markii aad xaraf kale ku qorata test bedel baan ku qornay test bedel markaan ku qoray saasaan ku dhameynay dabeedna waxaanu aynu eegaynaa bal inuu isbedelay waa ka test bedel baa ku qoran marka sidaa tahay asxaabta qaaliga waxaan sameynaynaa inta badan waxaa jirta oo dhacda inuu qofku uu rabo inuu computerkiisa uu running siiyo uu rabo inuu socodsiiyo uu rebooting siiyo yacni rebooting uu dib u habeeyo computerka ayaa la rabaa markuu rabo qofku inuu computerka uu reboot siiyo inta badan waxaa jirta inuu taaban karo xarfaha uu adeegsado oo kamid ah control alta iyo delete control alta iyo delete asxaabta kale imika kale control hadda taabato control plus alta plus delete waxa ku soo baxaya log this computer switch user waxyaabo noocaas ah ku soo baxaya marka runtii waxa taasoo rebooting weeyaan waa faa'iido kale dheeraada marka asxaabta ay kulli toddobadan tusay baan ugu faa'iido badan marka imika aan caawid soo bandhigaya toddobada ina ka faa'iideeyay ma filaya ila marka asxaabta qaaliga waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ka hesheen asxaabtiina inuu sii gudbiya channelkan subscribe iyo like iyo comment ku sii dhaafa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh